ugu horeyn culamada saynisku waxay tilmaamaan xadiidku inaanu ka mid ahayn maadada dhulka oo markay hadda tilmaamayaan chemically siday u samaysmaan atomisku terrestrialka dhulku inaanu suurtagal ahayn xataa markay lahaayeen wuu karayay in xadiid ku samaysmo xadiidku waa shay meel kale ka yimi baa la isku waafaqsay scientifically xadiidku inaanu ka mid ahayn dhulka waxa yaale wax meel kale ka yimi inuu yahay fasirintii hore waa anzalnaaga waxay ku fasiri jireen bimacna alkhalq laakiin iminka waxaa la ogyahay inay inzaalkeedii rasmiga ahay tahay sidiisa uu xadiidka loo soo dejiyey taa markaynu dhaafno horumarka bini aadamku ee xadaaraadku markayna intaynan enerjiga soo gaadhin wuxuu kala xoog badnaa sidii birta farsamaynteeda iyo soo saaristeeda loogu kala xoog badnaa ugu horeyn sanaacaadka haqiilka ama sanaacaadka waaweyn ee dunidu may dhismin intii aan productionka iron ku bilaabmin hadday tahay maraakiib hadday tahay treenno hadday tahay daaraha la dhiso daaraha dunidu intaan xadiidkan farsamadiisa saanay loo baranin 4 kama badnayn ilaa 5 oo dhoobadan qawska ee la dhisaa hadday 4 ama 5 engineeringkeedu dhaafo way dumaysay si awgeed markii la ogaaday birtan shubka lagu dhex shubi karo ay soo baxday ayay bilaabantay in tabaqaadkan dhaadheer la dhisi karo ugu horreyn waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid baa ilaahay yidhi waxaanu u jilcinnay birta farsamada birta baa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala oo uu ka samaynayay duruucdii iyo wixii lagu dagaalamayey iyo wuxuu ku dagaalgalayay oo dhan nebiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cayn alqitr in loo dareeriyey waalqitru في اللغة waxay ku tilmaamaan النحاس المذاب أو الحديد المذاب inuu yahay القطر hadii la yiraahdo القطر hadii la yiraahdo waa roobka القطر hadii la yiraahdana waa min aqطار السماوات والأرض القطر hadii la yiraahdo markaas qaafka la hoos dhigo waxay yiraahdaan waa الحديد المذاب أو النحاس المذاب shubka la shubo naxaasta ama xadiidka waxa nusuusta uu si tilmaamaya waxay tahay technology-gu markuu aqoontu markay practical isu bedeshaabay qiimaha samaysaa bilqarnayn ilaahay markuu tilmaamay waxa lagu tilmaamay inuu lahaa aatuni zubra alhadid hatta idha sawa bayna sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu an-nara qala aatuni ufriq alayhi qitra hadid iyo qitr mudaba hadid mudaba ama nuhas mudaba isku daray si uu nimankii meesha lagu xidhayay oo si fiican ugu xidho science oo dhamay wuxuu ka waramaa speed and time bay yiraahdaan technology-ga horumarkiisu waa laba shay waqtiga waxa lagu qabanaya in la dedejiyo iyo makaanka wuxuu qaadanaya in la sii yareeyo sanacadu markasta ay sii yaraato ay horumarto shaygu markasta wax yar sii noqdo la sii yareeyo waa horumaray marka aqoonta cilmigu waxay qabataa laba shay inay space-ka yareyso wax la dhigayo lagu sabaynayo iyo waqtigu waxaas wax ku qabanaya in la tiro badiyo ilaahay markuu ka warramay nabi Suleymaan waxa la tilmaamay dabaylo inay qaadayaan speed samaynaya ka dheeraynaya wixii markaa la watay oo gelina bil sii soconaya in la socday gelina in la soo soconaya waxa ilaahay quraanka ku tilmaamaya cilmiga iyo aqoonta uu leeyahay nabi Suleymaan markuu rabay Balqiis inuu soo qaado oo loo keeno carshigeedii ilaahay wuxuu ku sheegay ifriit min aljin baydaana la soo duulaya oo intaana shaqada ka bixin baan keenaya qabla an taquma min maqamik shaqada inta aad ku jirto ayaan keenaya ilaahay wuxuu sheegay waqala alladhi indahu ilmun min alkitab qala alladhi indahu ilmun min alkitab ki aqoonta la siiyay kan ammaan waxa ugu filan in sifadiisa la sheego leena sheegay inuu jin yahay inuu malaa'ig yahay inuu insi yahay mid ku qoladu noqdo toona qiimo badan sameyn mayso waxa qiimo sameynaya waa farsamada uu garanayay waxa qiimo sameynaya waa ka sadradad ilaahay wuxuu leeyahay qala alladhi indahu ilmun min alkitab ki aqoonta la siiyay ayaa wuxuu yiri intaan ilbirqsi ka yar ayaan ku keenaya كل هذه النصوص
waxaan rabaa inaanan sii balballaadhin sharaxe soo koobo. waxay tilmaamaysaa aqoontu weliba markay aqoontu know-how isu beddesho, markay isu beddesho applied science, wax farsamo oo la isticmaalaya markay noqoto inay tahay kullama bini aadamka horumarkiisa iyo dheerayntiisa iyo xooggiisa uu ku jiro. waxaa kaloo la socda bay yidhaahdaan culammadu xirfadyahanimada oo umamka maanta marka la qiimaynayo waxa la qiimeeyaa maalan muwaasiinta ay wax ku qiimeeyaan horumarka waxaa ka mid ah ummadda milyankii qofba imise baaxitho cilmiya bay leeyihiin. waxay kaloo wax ku qiimeeyaan milyankii qofba imise xirfadyahan baa ku jira, technicians imisaa ku jira. nebi sulaymaan markii ilaahay inooga warramayo boqortooyadiisii aadka u ballaadhnayd waxaa laynoo sheegay xirfadyahanno khataraynu haystay. wa min ashayaaiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camalan duuna dalik. shayddaamo farsamo yaqaana buu haystay oo badiyo berriba wax ka keenaya. farsamadiisu waxay gaadhsiisanayd islaantii mufasiriintu ay balqiis ku sheegaane haysatay saba markay timi qiila laha dkhuli sarxa baa la yidhi dhismahan gal. falamaa ra'atu xasibatu lujja, in meesha biyo ku jiraan bay mooday oo lagu dhacayo, laakiin meesha waxay ahayd sarxun mumarad baa la yidhi, dhisme dhalo laga dhigay oo aanad arkaynin waxa ka hooseeya, aan kuugu muuqanaynin siduu yahay. intaasoo dhan waxaan uga dan leeya inaan tilmaamo un qur-aanku qiimaha uu siiyey cilmiga, ama kiisa aynu iminka maadiga ku sheegna ha noqdo ama kii waxyiga ha noqdee. ummadda muslimiinta ahi waxay maanta dunida kaga jirtaa baynu leenahay meel dambe. sababtuna waxa weeyaan waxay dayacday wixii aadanaha dhismihiisa iyo dowladnimadiisa ka qayb qaadanayay ama horumarka wixii uu ku salaysnaa. waxay yidhaahdaan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini aadamka dunida kor jooga marka la eego muslimku rubuc ka mida weeyaan. afartii qof ee dunida marayaba midbaa muslima. haddana bay leeyihiin marka la eego aqoonta science-ka iyo technology-ga iyo politicalka iyo economicskaba, dhaqaale, siyaasad, cilmi, meel dambaynu maraynaa. inaynu meel dambe marayno waxaa kuugu filan ixsaa'iyaad waxoogaa ayaan idiin sheegi doona. tiro koobiyo waxay dhahdaan dhaqaalahay dunidu sanadkii samaysaa waa ilaa 60 trilyan. aadanaha kor saaran dhulku dhaqaalaha uu soo saaraa bay dhahaan waa 60 trilyan. muslimku wax 3 trilyan ka yar buu soo saaraa. dunida 60 trilyan baa la soo saaraya dhaqaalaha, muslimku 3 trilyan wax ka yar. waxay dhahdaan dhaqaalaha muslimiintu sameeyaan oo dhan 70 milyan ee faransiiskaabaa ka badan. bal waxaa laga yaabaa inay ku labanlaabmayso 120 milyan ee jabaniiskii dhaqaalahay soo saaraan iyo tirakoobka caalamulislaam oo dhan carab iyo cajamtiisaba isku dar dhaqaalahay soo saaraan 120kaas nuskeed bay soo saaraan. 120 sanamka caabuda inaynu nuskii la dhaqaalo noqonnaa inagoo dhulka intaa leeg leh oo adduunka intaa leeg joogana waa ceeb runtii. ka soo saaray ka dhaqaalo badanta dhaqaalaha Spain soo saarta iyo 12 waddan ee shidaalka soo saara. Spain taayar baa GDP-geedu ka badan yahay. Abu La'la al-Mawdudi Abu al-Hasan an-Nadawi baan u jeedaa raxmatullaahi calayh, sheekhi hindiga ayaa dhintay baa wuxuu leeyahay qarnigii 16aad wixii ka dambeeyey muslimiintu su'aalihii cilmiga ahaa iyo sayniska ku saabnaa waa ka seexdeen. su'aalaha metaphysics-ka ka warrama, ilaahiyaadka iyo waxa ka warrama ayay ku mashquuleen. saa daraaddeed may ka soo bixin buu leeyahay maskaxihii waaweynaaye lagu yaqaanay. waa sababta keentay buu leeyahay cilmiga iyagu soo saareen intay ilaabeen inay hidiya dhaqankii ku noqdaan iyo baadiyaha wixii lagu hayay. taasi buu leeyahay waa waxa ka dhigay inay addoommo u noqdaan nimanka reer galbeed buu tilmaamaya. marka adduunka la xisaabinayo aqoontu qiimahay ku leedahay maadaama aynu sheegnay iyo horumarka meesha ay ka taagan tahay. مثلا الأمم المتحدة UN qaybteedan UNDP la yidhaahdo taqriir ay soo saareen waxay ku tilmaamayaan dunida masiixiga ah
kristanka sheegata marka la isku daro yurubteeda iyo kuweeda kaleba boqolkiiba 90 baa wax qora. That means illiteracy-goodu dadka aan waxna qorin waxna akhrinin waa boqolkiiba 10. si kale markaan u tilmaamno waxay leeyihiin 15 waddan oo dunida kristanka ka midi qof aan wax qorin ma joogo. dadkoo dhammi waxbay qori karaan waxna waa akhri karaan. dunida muslimka si haddaynu eegno isku celcelintooda boqolkiiba 40 baa wax qori karta. qiyaas caalam islaami dunida masiixiga marka la eego bay yiraahdaan dadkooda mutacallimiinta boqolkiiba 98 baa dhammaystay dugsi hoose. dunida muslimiinta ana boqolkiiba 40 ka aynu sheegnay konton ka mid ah ayaa dugsi hoose ka baxay. that means 50 ka mid ah dugsi hoosena kama bixin. waxay yiraahdaan dunida reer galbeedka ama masiixiga marka la isku daro dadkooda mutacallimiinta boqolkiiba 40 baa jaamacad tagay. muslimiintana boqolkiiba 2 jaamacad tagay. boqolkiiba 2 markii horeba boqolkiiba 40 bay waxbarashadoodu ahayd. 40kiiba boqolkiiba 2 jaamacad ka tagtay. qolana marka hore waxbarashadooda boqolkiiba 90 ahayd. 90kiiba haddana boqolkiiba 40 ay heer jaamacadeed gaarsiisay. wadannada inaga inoo aqoon-yahanka Masar baa ka mid ah boqolkiiba 30 baan waxna akhrinin waxna qorin. 29.6 bay yiraahdaan. haddaynu si kale u tilmaamno boqolkiiba 30 baan gacantoodu musxafka taaban bay yiraahdaan. ila garan maaye waxay tilmaamaan ma faqri baa maya faqri maaha ee aqoontan qiimo ku lahayn agteena. kuuba wadannada faqriga bay ka mid tahay. da'yarteeda u dhaxaysa 15 jir ilaa 24 jir qof aan wax qorini kuma jiro. waa kuuba waa waddan faqiir haddii faqri lagu xisaabtamayo. dadkeeda waaweynna boqolkiiba 0.2 ayaan wax qorin. 0.2 waa imisa waa mid 10 meelood loo qaybiyay laba ahaan. boqolkiiba 98.8 ayaa wax qora dadkeeda waaweynna. waxa la mid ah Brazil, Chile, maxaa la yiraahdaa Colombia, wadannada yaryar caynkaas boqolkiiba 97 ama 98 baa wax qora waxna akhriya. dhan kale wax lagu qiimeeyo haddaynu marro caalam islaami oo dhan 600 jaamacadood ba ku yaala bay yiraahdaan. bilyan iyo badh ama 2 bilyan oo bini aadam 600 jaamacadood leh. waddanka Mareykan oo qurina marka instituteskiisa iyo jaamacadkiisa la isku daro 5,200 weeyaan. inta accredited-ka ah inta muctamadka ah ee 4 sano oo qualified ah ayaa 2,618 jaamacadood. that means hal waddan baa muslimka oo dhan marka la isku daro 4 jeer ka jaamacado badan. muslim oo dhan marka la isku daro bilyankiisa iyo dheeraadkiisa. si kale haddaan u tilmaamo 57 waddan baa muslimku majority yahay. 57 ka waddan ee muslimka ay maalan jaayisada caalamiga ee Nobel Prize-ka la yiraahdo 3 goor bay weligood qaateen. 3 goor ayay weligood qaateen. 3daasina xataa tira maaha. 3da qaatay 3duba markay jaamacadka levelka hoose caalamul islaami ku barteen bay ka tageen. 2 iyagoo Mareykan joogay qaateen. jaamacadka Mareykan bay baxtiga ku sameeyeen. midna isagoo Talyaaniga iyo Ingiriiska joogu baxtiga ku sameeyay oo ku qaatay. 2 chemistry ku qaadatay. waa nin Turkiya iyo nin Masriya. midna waa Pakistani. nasiib darrada ka Pakistaniga waliba waa qaadiyaan isagu. marka waxaynu tirsanayno dhami oo muslim Nobel Prize qaato dhan haddii la isku daro waa 3 nin oo gaalada la joogay ee jaamacadka islaamiga ah ee caalamul islaami wixii ku yaalay waxba may soo saarin. that means 0.05 Nobel Prize dunida la bixiyay intaasaynu ka qaadanay. gaal mulxid oo la yiraahdo Neil deGrasse Tyson nin midow oo Mareykan ah oo aqoon-yahanada sayniska laga dambeeyo ka mid ah
أنا ملحد أنا إلهي ربي سنين الله أدريه أيا وحليه هاي 15 milyan oo yuhuudda dunida joogto oo dhan buu yiri 15 milyan marka la eego buu yiri taariikhda 1902 ilaa inta la soo gaadhay 2010 intii u dhaxaysay 150 Nobel Prize bay qaateen 15 milyan ee dunida jooga yuhuudda waxay qaateen 150 Nobel Prize oo science ka hadlimaayo kuwa khuraafada ee waxa la yiraahdaa عالم الإسلام لقاطه إنه نوبل برايس كانوا قاضنا ما تقاني وسادات بقاطه يهود له شيء عرفات بقاطه يهود له شيء هبلها حقوق الضمر كود دقالما شيرين إن أنت إيران ده حقوق ده دقالمتا بيس كي قاطه نبض قاطه إن أنت يمنية ده حقوق ده دقالتا توكل بقاطه يرتع عروفته هيدا تدبيتون شركة هيدا باكستان تهيد ملالا بقاطه إنه قوة لينسيها hablaha xuquuqda u dagaalama Nobel Prize ka qaata Peace Nobel Prize nimanka yuhuudda la heshiiya adabka labay muslimiintu qaateen labaduna midi waa Najib Mahfoud awlaadu xaaratina abu ku qaatay ma akhriday wadin la'aan wuxuu qoray diin la'aanta lagu siiyay mid ka kalena waa Turki isna diin la'aan baa lagu siiyay wuxuu yiraahdaa cultural muslim baan ahay kuwa wax aaminsan meeyay dhaqankaygu baa islaamka ka soo jeeda adabka kuwa leeyno siiyayna waa kuwa Nobel Prize ka qaateen yahuudo 15 milyan hina marka la eego cilmiga dhakhtarnimada iyo biology-ga wada socda 196 Nobel Prize baa dunida la bixiyay 49 bay yahuudi qaadatay chemistry marka la eego 158 baa la bixiyay Nobel Prize 28 bay yahuudi qaadatay physics marka la eego 158 baa la bixiyay 45 bay yahuudi qaadatay dhaqaale marka la eego 66 Nobel Prize baa dunida la bixiyay taariikhda aynu sheeganay ilaa 2010 laga gaadhayo 28 bay qaateen that means wixii Nobel la bixiyay science ku saabsanaa 15 milyan ee yahuudi boqolkiiba 25 bay qaateen Gillespie oday la yiraahdo Mareykan أنا جبوبي هذا دوري سكاشن جرا لكن وعلماء اللغة دنبية تاريخ العلوم science history وحلي مكان جابوا دي medieval period كوقت اللي يقاني العصور الوسطى قرون تدحي الدنيا بقول يصدر عالم باكرو مقعود الله حسي كربو لي وأقويها هي تكنولوجي scientist هي تكنولوجي سحنشري بقول يلا باتن كم دي عالم كمسلم ككي ما دبوري يوروب نافر بيكولهاي وبقول يصدق كينين الدنيا ده أقونت ده هجامين يجي كما ورما يهدا تي شرعي قاعد معها وحكا ورما ياتي كله بقول يصدق كينين هجامين يجي الدنيا ده وقت قاسي مدي بالبيريت كيودن أيو قال كان مريكا وحلي بقول يلا باتن با عالم الإسلامي كيمي يوروب ده نافر بكيمي ملحدكii niil sahaaba wuxuu isweydiinaya war siday u dhacday buu leeyahay bilyan iyo dheeraad muslim bilyan iyo bar dadku dhadhow ama 1.3 1.5 waxay doonaan sheegaan intaasoo muslima oo aabayaasho dunida hogaaminayeen oo cilmi ku hogaaminayeen maanta inay wax la'aan dhacda xagay ka timi wuu isweydiinaya waa nin gaaleed markaas wuxuu leeyahay 15 milyan inay inta helaan bilyan iyo bad muslimeena in la waayo iyagoo shalaytana dunida iyagu hogaaminayay waliba su'aasha wuxuu ku daray uu leeyahay dadkii aan taariikh cilmiyeed lahayn iyaga kama hadlayo buu leeyahay kuwan taariikh cilmiyeed bay lahaayeen buu leeyahay waa wawiyadood dadkii aqoonta tan hogaaminayay xagay ka baxday buu leeyahay isagu isu jawaabaya in kasto laga yaabo jawaabtiisa inayna wada raacin waxa jawaabihiisa kamid ah wuxuu leeyahay labada kala jar bay isbedelay labada dhaqan bay isbedelay qolana cilmiga ay qiimaysay qolana cilmiga ay qiimo la'aan ka dhigtay way qolana cilmiga uu qiimaysay qolana cilmigu qiimo la'aan u noqday tusaale ahaan caalam islaam oo dhan waxaynu dhil xibqolo jaamacadood ba ku yaala dunida carbeed bay yiraahdaan jaamacaadka ku yaala boqolkiiba 75 rubco qarnigii ugu dambeeyay qarniga 20aad baa la dhisay waxaynu wax baranaaba haddaynu bilownahay waa boqolkiiba 75 waxa jaamacad carabi leedahay
iyagoo jaamacadkii dunida ugu horreeyey fas baa ugu horraysa azhar baa ku xigta zaytuuna ku xigtaan u malaynaya kollay labada jaamacadood ee ugu horreeya tafas baa ugu horraysa azhar baana laba ah jaamacatu alqarawiyin iyo jaamacatu azhar iyadoo jaamacaadba dunida haddii la sheego wixii ugu horreeyey hadda dhisana iyagu lahaayeen wixii baaba'e horena iyagu lahaayeen waa qurtaba waa baqdaad waa kan magaalooyinkooda ahayd waa samarqanda maantase waddankan yaryare yuhuuda falastiinta boobtay waddankooda yar 25 jaamacadood higher education baa ku yaalla marka loo qaybiyey bay yidhahdeen milyankii qofba 4 jaamacadood bay helayaan halkii milyan ee yahuudi ku nooliba 4 jaamacadood baa u dhisan 250 kun oo qof baa jaamacad leh innagana waxay yidhahdeen caalamulislaami jaamacaad ka dhisan iyo dadka marka la isu qaybiyo 3 milyan ba hal jaamacada leh 3 milyan ee muslima ayaa hal jaamacada leh dhan kale haddaan ka eegno jaamacadka marka la qiimaynayo waxaa lagu qiimeeyaa waxay tilmaamaan waxay yidhahdaan global ranking sida jaamacadka dunidu u kala qiimo fiican yihiin maalan waxaa jira 3 gruub oo wax qiimeeya shanghai ranking mid la yidhaahdo oo jaamacad ay leeyihiin chinesku waa bilowday 2003 baan filayaa meelahaasi gbs well running mid la yidhaahdo qs well running mid la yidhaahdo iyo jariidadan time la yidhaahdaa mid ay leedahay saddexdaas haddaad baadho saddexdaba 500 jaamacadood ee ugu horreeya sanawaadka qaarkood jaamacad muslimba kuma jirto ama xabad baa ku jirta haddaba 500 jaamacadood oo dunida ugu horreeya definitely waqti dhaweyd wixii ka horreeyey 200 jaamacadood ee dunida ugu horreeya muslimba kuma jiro wax jaamacad muslim ku taalla kuma jirto iyadoo saddexda qiimeed kriteeriyada waxay wax ku qiimeeyaan ay weliba kala gedisan yihiin oo haddii systemkan ay ku soo bixi weydo ay ahayd systemkan kale inay ku soo baxdo waqtiyada qaarkood 500 ee jaamacadood maraykan oo qura 168 keligii leh ingiriis oo qura keligii 40 leh 20ka jaamacadood ee dunida ugu horreeyo 17 maraykan keligii leeyahay saddexda soo hadhay 2 ingiriis leeyahay 10ka jaamacadood ee dunida ugu horreeyo 8 maraykan baa leh 2 ingiriis baa leh haddaad eegto 500 jaamacadood ee dunida ugu horreeyo 34 jabaan baa leh idan haddaad sidaa u eegto G7ka la sheegaya dee waa jaamacaadkii ugu waaweynaa un dadkii haystay waa dadkii cilmi baadhista sameeyey waa dadkii aqoonta lahaa walidalik ma jecli ceebta muslimka inaan sii baadhbaadho laakiin intaa waxa ka sii daran adigoo aan jaamacad haysan wax tarto oo qiimo samaynaysa imikay dhowr midhoo sacuudigu leeyahay ayaa mid sacuudiga leeyahay boqolka koowaad hadda soo gashay laakiin labada sabjiga ay ugu fiicantahay mid baa af ingiriisiya iyana oo ay jaamacadda shariicada dunida ka tahay af ingiriisiga soo wax ka tarayo marka loo eego Malaysia dhowr leh dhowrka boqol jaamacadood ku jira siba 200 jaamacadood ugu horreeyay hadda 4 bay leeyihiin Turkigu intan dambu soo socda 2 jaamacadood buu ku lahaa intaa waxay nagaga sii daran waxoogaageenni iska rafaadka ahay intay soo saaraan intaas bay haddana qaataan intii lacagta lagu bixiye lasoo helay lasoo saaray markay bislaadaanna hijratulcuquul baa bilaabantay waxay yidhaahdaan brain drain maskax dareer bay u bixiyeen waxaa la yidhaahdaa waddanka maraykan sagaashanaadka wixii ka dambeeyey 12 milyan buu qaatay bale 1995kii wuxuu bedelay fiisayaasha uu bixiyaa noocayiin waxay ku tilmaamaan sanadkii 2003 wuxuu bixiyey 200 oo kun oo fiise oo 100 kun oo ka midi programmers qurayiin si kale haddaan usoo tilmaamno waxay yidhaahdaan maraykanku inuu dunida ka horreeyo qura ma rabo ee wuxuu rabaa inta xidigaa in leeg inuu ka horreeyo saa daraaddeed midhkaad adigu lacagta ku bixisee soo saartayna wuu iibsanaya wuu qaadanaya waxay yidhahdaan dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta
boqolkiiba 50 Yurub iyo Ameerika joogaan dawa carabtana dhakhaatiirta u baahnay dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta 50% ka mid waxay degan yihiin North America iyo maxay iyo Yurub ay degan yihiin waxay engineer lahaayeen oo dhan boqolkiiba 23 iyana galbeedkay jiraan waxay culamo khubara lahaayeen boqolkiiba 15 galbeed bay jiraan ingiriis oo qura dhakhaatiirta joogta boqolkiiba 34 baa carab ah waxa ingiriis ka dhakhtara boqolkiiba 34 baa carab that means intii lacagta lagu bixiyay ama Yurub loo diray la soo saaray ama meelahan ba lagu camcamiyay la soo saarayna intiina lacag bay ku qaateen dib bay u iibsadeen saadaradeed waxay dhahdaan ardada caalamka carabeed ay u dirto inay jaamacaadka reer galbeed ka soo baxaan boqolkiiba 54 baan dib u soo noqonin حمل الشهادات العليا بينادا شهادوين كسره علماء السيدتي عربين سنة كي لبدا كون marka la tiriyo 450 kun baa joogay galbeedka maxaa soo haraya marka hadii marka hore laga aqoon badnaa oo laga jaamacada fiicnaa oo laga wanaagsanaa marka dambana waxoogaa yar aad soo saarto قال ملاحدة كمدة دكتور ميشيا كاكو لا يراضو أسأل كي سواء داير لكن هو أمريكان أيها وحوليه هاي سيليكون فالي ما تشرين بوليه هدانو H1B فيزا أنو تشرين بوليه فيزا تشرين لا يراضو H1B أمريكان كوبيحيو هدان فيزا هسي تشرين بوليه سيليكون فالي ما تشرين ويدوني دمانت واقي هوري shirkadaha dunida ugu lacagta badan leh 10 shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh waxay ahaan jireen shidaal iyo gawaadhi 10 kuba shirkadaha shidaal ka shaqeeya iyo shirkadaha gawaadhida imika mid ama laba kaga jirta 10 shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh aqlay ku xoogsadeen ee commodity ma haystaan qalab ma jiro waa barnaamijyo wax la mid ah waa Amazon shirkadda ugu xooga badan leh وقال كان ويندو قال محل ورنجر بيل جيت وقال كان كلام كقواعد ده يوح صوصار يعني كوحود رايسنا محل هذا اسكو صادق وكان فيسبوك أو سمايستي وجوجل قرادة سمايستي لما دارده سمايستي لما أنت أدو حباي قرقرينونا برنامج أي سمايستي وحكلو أي قاني بمشرو برنامج أي الدنيا بليونير لوي haddana laba shirkadooda kamid ah hadii dhaqaalahooda la isku daro caalamka islaamiga oo dhan waxay soo saaraan bay ka dhaqaalo badan karaan laba shirkadooda kamid aqoontu xooggaasay dunida leedahay aqoontu xooggaasay dunida leedahay oo dadkii commodity waxay dhaahdaan khamka materialka khamka dunida kuma horumarto ee manufacturing bay ku horumartaa ma jira bay leeyihiin wadan dunida hogaamiyay oo aan industry lahayn wadan macdan soo qoda ama shidaal soo saara ama mining soo saaro horumarsan dunida ma jiro ninka soo walwalaaqo ba horumarsan kaasoo ba dunida ku shaqaysto xoolaheeda haysta kan laakiin ceelasho ay ku yaalina laga soo qodaa waa un ceelka laga la baxaa wixiisa qiimo ma samaynayo saawgeed ay wax isku dayeen Mareykan maanta galkaasi Miishaya Kaku wuxuu leeyahay science PhD waxa sameeyay Mareykan degani boqolkiiba 50 dabad bay ku dhasheen Mareykan uu kuma dhalanin dad miinisu wixii aqli dunida jiray wuxuu isku dayay hadduu wax barasho ku keeni karo waa inuu lacag ku keeno oo dabeetana uu isagiisa wax ku baro Afrikadan madoowa taqaaniin waxay dhaahdaan 20,000 oo caalim oo ay leedahay bay sanad walba Yurub ka qabta dabeetana bay yiraahdeen khubaro la taliso si ay u soo kireystaan 4 bilyan oo lacag oo kale ku bixiya qiyaas inaad caalim soo saartaa marka hore mise bilyan buu kugu joogaa markii la soo saarayna kuwaas qaatay sanad walba 20 kun ka qaataan khubaro waxaan uga dalleeyay markaa haddaad maqasho dunaa horumartay dhidid bay ku horumareen iyo waxbarasho iyo wax soo saar bilaash kumay horumarin cid inta iska seexatay badhaadhay oo horumartay ma jirto cid aqoon adeegsatay
ayaa horumartay innagana waxba inagama xigaan inaynu horumarno waxba inagama xigaan go'aankeenna inaga xiga inaynu shacab iyo dawlad iyo qiyaadaba inaynu yeelanno go'aan ah inaynu aqoontu inay qiimo tahay aragno cilmigu inuu wax yahay innaga cilmiga waxuma aragno haddii marka aynu rabno horumar oo qofka qof noloshiisa difaacanka iyo dalkiisa iyo dadnimadiisa ka dhigaya waxay ku xidhan tahay sidaynu waxbarashada u qiimayno nolosha adduune horu martayna waxbarashay ku horu martay alaab la soo iibsadana laguma horumaro daara dhaadheer oo la dhiso tagaal la keeno uu daar dheer kuu dhisay waxaa laguma horumaro dad kolba carabi tidhaahdo daarta dunida ka dheer ugu dheer baanu dhisaynaa iyaga iyo daarahoodaba dad baa isku leh iyaga iyo daarahooda iyo shidaalkoodaba dad baa isku leh waxaa la yaabantiin maxaa farta loogu yeedhaya maxaa waxaan laynoo leeyahay maxaa caynka dee waa laynaga xoog batay waynu seexannay dee haddaad seexatana ogolow soomaalida mahmahadeedu maxay ahayd miskiin baa miska la fuulale bay idhahdeen adduunka cid isuma naxdo naxariis ma jirtee waa ninkii wax iska dhiciya unbaa dad noqda soomaaliya way jabtay maxaa dunida noogu soo oryi wey war waa lagu sii korayaa cid ku soo kicinaysaa ma jirto mid gaal professor jooga Cambridge University oo kuway ka dambeeyaan ayaa nin sheekho Soomaaliyeed oo ardada meesha wax ka barataaba wuxuu yidhi waxaan weydiiyey su'aal ah war waddankaygi waa kan degi waayo idinkuun baa ku jira maxaa naga rabtaan intuu dib u jiifsaday buu cabbaar fakeray ayuu wuxuu yidhi wixii laydinla rabaa weli laydin yeelsiin maa laydin gelgelaya intaa haa ka odhanaysaa wixii laydinka rabay baan weli laydin yeelsiin buu yidhi tii baydan weli aqbalin markaa inta taa ka gaadhaysaan waa ahaanaysaan buu leeyahay in caynkaa laydin wado calaa kulli xaal warkaygu wuxuu ku kooban yahay aqooni haddaad aakhiro doonaysana facalayka bilcilm haddaad adduun doonaysana facalayka bilcilm وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين